maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waayo bismillahi raxmaani raxiim waxaan mar kale bilaabaynaa qaybtii labaad ee buugga tobnaad business study ayaanu bilaabaynaa inta hore waxay ahayd hordhac bay ahayd marka hordhici waan dhamaynay insha allah ujeedadii buugga iyo ujeedada guud ee businesskanu ka soo hadalay hadda waxaan bilaabaynaa insha allahu bal marka horese buuggu muxuu ka kooban yahay contents of the business study 10 wuxuu ka kooban yahay 4 units buu ka kooban yahay 4 unit unit 1 waxaa la development of administrative thought unit 2 waxaa la market forces unit 3 waxaa la yiraahdaa entrepreneurship skills unit 4 waxaa weeye accounting treatment of financial transactions ayaa la yiraahdaa afarta unit ayaynu qaadanaynaa hadda saad u jeedin duubitaankeena waxaynu ku qaadanaynaa the development of administrative thought iyo market forces labadaasina insha Allah u qaadanayna haddii alla idmo labada dambena duubitaanka ka sii dambeeya ayaynu ku qaadanayna haddii alla idmo waayo aan soo qaadano unit 1 markaan soo qaadano aan soo qaadanayna unit 1 baan soo qaadanayna waa development of administrative thought waayo maxaa looga jeedaa development of administrative thought waxa way horumarkii ay soo sameeyeen afkaarta ama fikirada qaabka wax loo maamulo adduunka say usoo horumareen xagee ka soo bilaabeen meel bay ka yimaadeen yaa ugu horreeyey horta marka ugu horreysa maamul ilaa iyo xawiye aadan waxbaa la maamulay marka horta nin oran karaa ma jiro fikirka maamulka anigaa helay adduunku waxa weeye waa sidii nebiga inoo sharxay calayhi salaatu wasalaam waa guri soo bulkeetiga oo nebiga anigu waxaan ahay diinteedu waxay bulkeetiga ugu dambay saaraysaa minaha maarta dadmanis intaas bulkeetiga ku horreysa soo dhisatay marka fikirada ama afkaarta aqoontu waa ilaa iyo xaawiye aadan waa something build up oo dhismayey wey oo soo korayey weeye minaha maarta waa wax soo korayey soo dhismayey weeye minaha maarta marka waxaan eegaynaa marka inaga hadda ma soo koobi karno oo casharadeena kuma soo koobi karno ilaa xaawiye aadan fikirkan qaabka wax loo maamulo uu soo horumaray haddii aan soo koobno dee waxay noqonaysaa wax aad u badan bay noqonaysaa inaga waxaynu eegaynaa waxaynu ka bixinaynaa si guud baynu waxaynu u taabanaynaa wixii xilligan casriga ka horreeyey ama adduunka mar walba ilbaxnimaa talinaysay ilbaxnimooyinkii marba ilbaxnimooyinkii talinayay waxaan soo qabanaa tan ugu dambeysay ee reer galbeedka barada qaabka ay administrative thoughtska ay u develop gareeyeen baa ugu badan laakiin kolley buugga hadda macallinku markuu buugga yara fiirfiyo wuxuu ku arki doonaa iyo ardayduba waxay ku arki doonaan yani fikiradii hore oo dad fara badan oo ama ilbaxnimooyin hore u jiray oo soo horumariyey waxaa la yidhaahdo administrationka oo hore u jiray oo badan baa minaha jira minaha maaragta marka way badan yihiin yani meel kastoo adduunka ka mid ah even subaxii horta marka horeysa managementiga waxa la yidhahdo waxaa la yidhahda managementigu laba definition buu leeyahay ama laba qeexnimood buu leeyahay mid waxaa la yidhahda waa universal activity oo yani qof kastoo shaqo u dhaqaaqa kolley wuxuunbuu maamulayaa midna waa shaqo waa xirfad profession oo dee qof inuu qofkaasi maamulo yahay waxa weeye waa doing things right way inaad shaygii sida saxda u qabatid ayaa la yidhaahdaa baa waxaa la yidhahdaa marka labada macniyo wuu leeyahay marka macnaha kan guud dee dadkoo dhan way wadaagaan marka ilaa iyo xawiyaada waxbaa lasoo horumarinayay marka tusaalayaal fara badan oo xitaa xilliyadii dhexe manaha maarata qarniyadiina soo dhaafay xitaa Soomaali baa buugga lagu soo qaatay qaab ay wuxuu maamulayeen baa ku jira buugga aad ku arki doontaan insha Allah marka inaga waxaan soo qaadanaynaa marka waxaan marka ka hadlaynaa waxa weeye sidii wax loo soo develop gareeyay iyo waliba fikrada faraha badan markii u dambeysay hadda qarnigan 20aad ee dhamaaday markii la soo gaaray waa la kooxeeyo intii isku wax ka hadlaysaba hal koox baa laga dhigay minaha maarata
oo minaha aragtiyihii aqoonta waa la isu geegeeyey minaha maarata marka waxaynu eegaynaa bal aragtiyaha aqoonta ee casriga ah sida ay maaragtay usoo horumareen baynu eegaynaa iyo qaabka loo wadareeyey ee laisugu geegay ama laisugu biirbiiriyey baynu fiirinaynaa insha allah haddii alla idmo okay ereyga administration iyo ereyga management waa isku macno laakiin inta badan administration waxaa loo isticmaalaa low level of management xagga hoose ee maamulka managementna waxaa la yihahdaa xagga sare waa loo kala adeegsan laakiin luuqad ahaan marka loo dharaa marka dictionary-ga la fiiriyo macno badan kuma kala tagana waayo horta unitka ujeedooyinkiisa waa kuwa kale oo unitkeena ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah recognize the concept of administrative school inaan horta madhabihii ereyga school markuu halkan ku jiro iskuulka caadiga ma halka wuxuu ugu jiraa luuqa alcarabiya wuxuu noqonayaa madhab waa madhab sida madhabta shaaficiye oo kale camal oo kale iskuul la macnayo marka madhabihii kala duwanaa ee aqoontan administration kusoo horumartay learn about the contribution of ancient civilizations ilbaxnimooyinkii hore ee qadiimka ahaa ama maaragtay dadkii hore ee jiriidada ahaayee dee adduunka beer hore ka tegey qaabka ay wax u maamuleen waxbaynu baa kaga jira buugga oo tusaalayaal badan baa buugga ku yaalla understand oo yani ardayga waxaa la rabaa inuu civilizationskii hore ama ilbaxnimooyinkii hore wax badan ka fahmo baa la rabaa iyo qaabka ay wax u maamuli jireen understand contributions of islamic civilization waxaa kaloo ku jira buugga oo la rabaa macallinka inuu kusii baraarugsanaado wax fara badan oo yani waxaa la odhan karaa ilbaxnimadii muslimiintu waxay tii ugu badnayd ee nidaamka wax loo maamulo wax fara badan kusoo kordhisay bay ahayd marka iyadana waxaa kaga jira wax fara badan baa buugga kaga jira oo buugga ujeedadiisa waxaa ka mid ah in ardada laftigeeda la fahansiiyo horta ilbaxnimadii islaamku maxay kusoo kordhisay administrative tooska ama fikirka maamulka qaabka wax loo maamulo identify the contributions of classical school thinkers waxaan kaloo eegaynaa marka ilbaxnimadan hadda adduunka ka talisay reer galbeedka yani raggii ka midka ahaa ee qaabka ay wax u maamuleen ama maaragtay sidii isyaalihii ay u fakereen ama qaababkii ay u casriyeeyeen fikradihii hore ee dadkii hore laga keenay ilaa xawi aan wixii laga keenayay bay casriyeeyeen oo waxay ka dhigeen dee wax cusub bay ka dhigeen oo way hagaajiyeen oo ka sii shaqeeyeen kuwaana inaynu isla eegno ujeeddada buugga ayay ka mid tahay waxaa kaloo ujeeddada buugga ka mid ah learn about the contributions of behavioral school thinkers to management inaynu si gaara u fiirino qolyaha madhabta behavioralka loo yaqaano behavioralka waxa weeye waa madhabtan managementiga ee daraasaadka ama baaritaanka ku samaysa waxaan la yidhaahdo qofka shaqaalaha ay siduu isbehave garaynayo ama marka uu maaragtay shaqo qabanayo the way he behaves or she behaves qaabka behave garaynayso minaha maaragtay baa waxaa la yidhahdaa behavioral school baa la yidhahdaa marka madhabtaasna waxbaynu ka fiirin doonaa insha allah so learn about the contributions of behavioral school thinkers to management ugu dambeyn understand the concept of the theory that waxaa jira mc groger nin la yidhaahda teoriyooyin uu leeyahay oo shaqaalaha kaga hadlayo iyo sida loo maamulo iyo shaqaalaha iyo behaviorkooda uu kaga hadlayo oo marba wax ku metelayo marka teoriyooyinka horena tafsiir gaar ay bixinayaan kuwa dambena tafsiir gaar ay bixinayaan minaha maalin marka way yaro kala duwan yihiin minaha maalin waayo halka kan haddaad sawirkan u fiirsatay iminka kan haddaad iminka sawirkan u fiirsatay tusaale ahaan oo kale sawirkan wuxuu kuu sheegayaa evolution of management theory aragtiyaha maamulka ee hadda dunida la haysto qaabka ay usoo tadawureen ayaynu fiirinaynaa marka waxaa jira buugaagta badanaaba ardaydu markay akhrisanayaan xoogaa magacyada la isticmaalaan maaragtay dalalka kala duwan magacyada ay isticmaalaan way badan yihiin marka halkan waxaan kusoo koobnay si yar oo kooban marka ugu horreyn horta laga soo bilaabo meelaha maaragtay 17th century marka laga soo bilaabo qarnigii 17aad marka laga soo bilaabo tusaale ahaan oo kale baa tad horumarkii soo bilaabmay oo aragtiyaha maaragtay cilmiga in laga hadlo marka fikirkii soo bilaabmay xilligaas waxaa la yidhahdaa classical management baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa classical management ayaa la yidhahdaa classical management baa la yidhahdaa fikirkii xilligaas soo bilaabmay marka classical managementiga ayaa isagu laba usii kala baxa marka aan intana sharaxaad ugu sii daraya moodka classical management wuxuu usii kala baxaa labo usii kala baxa oo waa maxay
كهرباء هذا هذا scientific management على scientific management scientific management كلامنا وحلي هذا administrative management administrative عليها كلامنا مركز السكول ده وحلي السكول هذا classical سكول بل سكول هذا وحلي مذهبتي classical كده قديم كاي ومذهبتي تشريد ده هيدا هراء ويحل هراء ولا ما تيجي مركز محي يدو لبقى يبودو نقطة لبقى يبودو حي نقطة thinkers كي هراء أريدن كيني وهي هاي نينك لورنش تايلور ما فريدريك تايلور نينك لورنش قاب كان أمس حلقي industrial revolution كأما وكبر عمي أقول وذا جياشة كعنك وذا جياشة كبر عمي قلبك كبر عمي أيا وحبتي هنتي أي هايستين اللي وكي دولة كوفافيو حول بدن كسوق قادني وشد السماء سنية أو وحفر بدن السوق يعني موتها مركا شغالها يدك هي سنة واحدة حرفته هو أي هوسيان وده مركا أقوم في بدن المال يشيل موتها مركا حلقة أي مشين هذا بلعبين إنه وحكوسه صار أنا ما وحكوسه صار كده مشين هذا بلعبين منها مال أيون كان يروحوا فكري سي وحول بيني سي scientifically وشقيان يقول لو صلينا منها مالتي أقوانت الساينس كما أقوانت علم الساينس كما صلينا منها مالت أيو صار صاري أنت بدلنا وشدة scientific management يقول لها معناها إنه ضدك للشغل جليو مشينك للشغل جليو ويحوق شقيان سأيو صار صاران وبدل إلا هنكر maximum output إنه صار صاران بيوشدة دو هيد منها مالت مركا حلقة scientific management تيجا منها مالتي شريتان كجناس يقوم أما ورشدوا ما أنا إلهين حفيز معمول يمشي لقى شقيني يعني إنك معمولها يقول نحتاج نشري هذه يقول بيش لقى شقيني وكم تشرين بيبر ما تشرين ورقة ما تشرين وحفيز لو شقين شري ما تشرين من عمل مركا كبعدي مركي لتدور للسيستمية وهرا الله سير رسولي واحد بلعبي النظام كله administrative كبلعبي administrative مركو واحد بلعبي هنري فيوليو ماكس ويبر لبعض النيلي يا بلعبي وحين أو بلعبين الذي هي scientific management تقولها إلا يرى حليه كو يوم مركم حي حليه وحي حليه هرتا شريتان كستو أو شقينيا إنه حفيز يلو شريتان كستو أو شقينيا إنه حفيز لصبيه ومشهر بحنتي إيو شغل قريستي إيو حسابات كي إيو wixii la fariisiyo maaragtay bari hore waxay ahayd company dad oo shaqeynaya ama jiritaan oo shaqeynaya ninka maamulka dhex taagan yahay oo fiidkii bal wuxuu maaragtay wax yara qoran bay ahayd moogtay laakiin in la helo xafiis shaqeynayo oo yani hawsha maalinta xayaa ka socota xaggana ka wada waagaas isku bilaabantay marka ragii ugu horeeyay helay waxay ahaayeen ninka la yiraahdo waa administrative waxa soo saaray Henry Fayol of France iyo Max Weber oo German ayaa soo saaray laakiin kan hore scientific management wuxuu ahaa Frederick Taylor oo American buu ahaa minama marka ka waxa la classical management hadii marka aad u fiirsatid halka hada u fiirsatid sanadkaas waxa u jeeda inuu yahay manaha maaragtay 1890 ayaa soo bilaabantay classical representative of scientific management oo xilligaas soo bilaabmay اللي قال كاسكو صوب بلعمي وكا كاسكو بلعمي مدك بعدي وحا بلعمي وحيلون شيء classical perspective و administrative management and bureaucratic management مركب bureaucratic يو administrative واسكو معلوم واي إرجع bureaucratic واللاتين and I think it's in German إنه يهنا وفيليا لكن معناه يسو و office management واسده حفيز لو معمول لها bureaucratic ليها بوقتي مركب لبنا هوسه labada hoos waxa la isku yiraahdaa classical management baa la isku yiraahdaa labada hoos waa classical management marka thinking koodu marka wuxuu ku saleysnaa how to get the maximum output iyo in wixii shaqeynaya xafiis loo helo fikirkoodu intaas ku saleysnaa qofka bini aadanka ay yani shirkad marka jiritaan uu shaqeynayo laba danood baa meesha ku jira danta qofka shaqaalaha iyo danta jiritaanka labadaas hadii goolays laakiin iyagu
qolyaha kani berigaas dantooda un bay eeganayaan qofka dantiisa cidina ma tixgelin jirin oo yani wax la sheega muusan ahayn taa markii laga soo guuray waxaa bilaabmay markaas aragtiyihii managementiga ama fikradii managementigu horumar bay sameeyeen oo waxaa la arkay tijaabooyin baa la sameeyey oo qolyihii iskuulkii hore ee classical managementiga baa horumar sameeyey waxaa la yidhi wax soo saarku muxuu la kordhi waayey wax soo saarkii waa liitaa oo hoos buu sii dhacayaa dadkii shaqaalaha markay muddo shaqeeyeen way iska daalayaan maxaa jira xagee ciladu ka jirta dabeedna la fikiro waxaa la yidhi bal aynu fiirino qofka bini aadanka maxaa shaqada ku dhiirigeliya marka waxaa loo gudba xagga motivation dabeedna tijaabooyin fara badan baa la qaaday oo ninkii la oran jiray Alton Mayo uu qaaday tijaabooyinka la qaadayna waxaa ka mid ahaa minaha maaragtay bal qofka bini aadanka maxaa dhiirigelin kara dabeedna markii la baaray la soo gabagabay waxaa la arkay human side-ka qofka haddii respect la siiyo la tixgeliyo dantiisa la yara fiiriyo inuu wax soo saarka kordhinaya la ogaaday markaas baa waxaa bilaabmay iskuulkii kale ee la oran jiray human perspective ama behavioral science markaasuu bilaabay minaha maaragtay iskuulka cusub baa markaa kusoo biiray yani madhabtii markan way isbedesho classical madhabtii classicalka waa laga guuray marka kale waxaa loo guuray marka human perspective laakiin sida marka teoriyooyinka managementiga laga hadlayo lama yidhaahdo that's midaasa bestia lama yidhaahdo laakiin they are completing each other oo wax isdhamaystiraya moogtahay sometimes in this time aynu joogno mar baad waxaad u baahan tahay inaad isticmaashi minaha maaragtay scientific management theory-gii mar baad u baahan tahay inaad isticmaashi administrative-kii laakiin waa wax isdhamaystiraya waxa kani oo midba mid dhammaystiraya wey haddana waxaa looga guuray oo ku xigay markii humankii perspective-kii la fahmay oo dadkii la tixgeliyey oo qofkii bini aadanka ujeedadiisa la yara eegay markuu jiritaanadu soo shaqo tago wax soo saarkii bay isbedelay haddana teoriyooyinka horumar bay sii sameeyeen waxaa soo kordhay qolo kale oo la yidhaahdo management perspective quantitative management perspective ama si kale haddii loo yidhaahdo management science-na waa la yidhahdaa hale management science marka waa aragti ka dambeysay human perspective-ka oo macnaheedu waxa weeye quantitative inaynu isticmaalo mathematics or to solve the problems aan isticmaalno scientific notations to solve the management problems bay ujeedadu ahayd inaan maarag marka waxyaalaha kale wuxuu soo bilaabay tusaalahaan oo kale in dad badan oo science iyo xisaabta wax yaqaan meel inta la isugu keeno problem loo dhiibanayo bal mathematical ahaan waxa liya saas oo kale marka qoladaas cusub markay soo baxdeen waxaa loo bixiyay management science marka hadii waxaa isku khaldin management science iyo scientific management they are two different things way mugtay yani wax kala duwan weeyaan inaan maarag wax isku mid ah maaha mugtay laba wax kala duwan weey because kan waa aragti ka dambeysay human perspective-ka ka dambeysay weey ugu dambeyn teoriyooyinka managementiga ama tadawuraadka ugu dambeeyay ay sameeyeen waxa ka mid ah waxaa la fahmay oo aan berigi hore la fahansanayn organization-ka ama jiritaan meel ka shaqaysanaya sida uu deegaankiisa ugu xidhan yahay waagi hore lama fahansanay laakiin gadaal baa laga fahmay marka haddaad iminka fiirisay teoriyooyinka managementiga oo dhan all of them they talk about management environment ayay ka hadleen marka waxaa jira waxaan rabnaa macalinka waxaa laga rabaa ereyo fara badan oo kala macno u muuqda in la fahansiyo ardayga uu fahansiyo hadda tusaalahaan oo kale bugaagta markay kaa hadlayaan tusaalahaan oo kale scientific managementiga magaca ka dhexeeya waa classical perspective waa la yidhahdaa classical school waa la yidhahdaa laakiin classical schoolku wuxuu noqdaa scientific management wuxuu noqdaa oo kale administrative management ama bureaucratic management waxaa kaloo la yidhaahdaa kan hore keligii scientific managementiga bugaagta qaar ba waxay u qoraan rational goal models bay qoraan kan kale ee administrative-kana waxay qoraan internal process models bay qoraan ba bugaagta qaarkood qoraan laakiin kan human perspective-ka isaga waxaa la yidhahdaa human relation models-na waa la yidhahdaa human perspective-na waa la yidhahdaa labadaba waa la yidhahdaa kan kale ee hadda teoriyooyinka ugu casrisan iyaga waxaa la yidhahdaa open system models-na waa la yidhahdaa oo marka open system waxaa la isku labadaba open system la isku yidhahdaa tan ah aynu u bixinay quantitative management perspective oo marna waxaa la yidhahdaa
magacana waa la siiyaa magaca quantitative management perspective waa la siiyaa waxaan kaloo idinku waxaa la yidhahdaa management science-na waa la yidhahdaa labada magac ay qaadataa kana waxa weeye waa contemporary perspective organizational and environment way oo theory-ga waayo environmentalka qaabka uu ugu xidhan yahay waxa weeye oo casharkii buugga horena waynu kusoo dhiganay business environment yani organization markuu meel ka jiro environmentalkiisa muxuu uga baahan yahay resourcekii uga baahan yahay shaqaalihii uga baahan yahay lacagtii ku hawlgeli lahaa uga baahan yahay wuxuu uga baahan yahay inputkii wixii uu shaqadiisa gelin lahaa ku shaqayn lahaa buu u baahan yahay sumcad buu uga baahan yahay muxuu marka wixii uu soo saarana environmentalku ku celiya marka eeg noloshoo dhan environmentalkay ku xidhan tahay minaha marka environmentalka in la fahmo iyo qaabka loo maamulayo iyo qaabka signalska ka imaanayo loo kala hagaajinayo aad iyo aad bay muhiim u tahay minaha maala waayo waxa weeye dadku ama bini aadamku waxay u kala horumarsan yihiin hawada dululaatida bannaan ee halkaas soo maray signals baa soconaya laakiin dadku say u kala fahmaan ama u kala arkaan bay u kala horumarsan yihiin minaha maala waa halka ilaahay baa yani aqoon baa halkaas soconaysa signalo ilaahay soo daayay baa dhulkaas soconaya marka signaladaas sida loo kala arko ama loo kala fahmo ayaa maaragtay loogu kala horeynayaa hadalkasta laba ganacsi oo midna cirkaa marayo midna dhulka jiifo baaba'ayo signalskii kala fahmeen waa intaasoo keliya wax kaloo meesha yaalla ma jiraan inaha maal okay marka intaan waxaan kaga baxaynaa schoolskii sidoo kale sawirkan laftigiisu wuxuu si wacan u sharxaya schoolskii si wacan u sharxaya wuxuuna kusoo kordhinayaa idea kale ama fikir kale kusoo kordhinaya oo ah halkan ka soo qaad waa centerkii qofkii managementkaa baa taagan haddaad xaggaa aadid kor haddaad aadid yani maamulkaaga waxaad ka dhigtay flexible oo awoodda waxaad u gudbisay dadka kaa hooseeya haddaad hoos aadidna waa dictatorship waxaad badisay controlkii baad badisay iyo adkayntii baad badisay haddaad xaggaa xoog aadid waxaad xoogga saartay externalkii inaad dadka bannaanka iyo environmentalka inaad iska dhistid laakiin gudahaaga waxaa laga yaabaa inuu dunsan yahay haddii aad xaggan aadidna waxaad aad isaga dhisaa gudaha organizationka gudihiisa iyo maamulkiisa iyo shaqadiisa iyo waraaqihiisa iyo document recordingkiisa iyo wixiisuna abto dhehid baad dhisaysaa ma ogta marka waxa weeye haddaan xagga aado tiyoriyooyinkiibaa marka qaadanaya halkaa eeg haddaan aado waa intaas waa hal tiyoriyo oo maxay tahay dhinac markaan xagga aado dhinac waxaan ka ahay human resources model ama behavioral management haddaan xagga dhinacna waxaan ka ahay open system oo intaas way open system intaas iga husaysa human relation intaas iga husaysa haddaan xagga aadana intaa waxaan ka ahay open system intana waxaan ka ahay rational goal model ama wixii la oran jiray classical managementigii haddaan xaggan aadana maxaa noqonaya xaggan waxaan ka ahay scientific management baan ka ahay haddaan xagga aado haddaan xaggan aadana control mar walba controlka badanaya ma ogtahay marka haddaan xaggan aadana waxaan ahay administrativeki haddaan xaggan aadana waa scientific management marka classicalkii intan u dhaca because classicalka controlka badnaa classical managementiga systemka controlka aad u fara badnaa haddaan jihaadan aadana haddaan xaggan aado waxaan dhinacan ka ahay human behavior science behavioral management baan ka ahay dhinacana waxaan ka ahay administrativeki baan ka ahay marka waxa weeye mid walibana meel buu ku dhammaadaa minaha maaragtay marka si fiican waxaa la rabaa macalinka iyo ardayda inay si fiican u wada dirsaan sawirkan oo kale yani wixii aynu ka hadlanay o dhan buu si fiican u koobayaa minaha maaragtay waayo activitygan mid walba waxaynu soo qaadanaynaa hal tusaale activity-gan soo qaadanaynaa activity-gan oo kale marka macalinku ardada u dirayo waxaa la rabaa inuu u sheego tusaalahaan oo kale ardayga maxaa laga rabaa in si fiican loo fahansiiyo halka waxaa ku qoran administrative areas planning organizing directing and controlling intani waa afarta function ama waa afarta shaqo ee qofka maamulaha ama qofka wax maamulaya uu qabto qofku mar wax buu qorsheynayaa mar wax buu agaasimayaa mar wax buu hagayaa marna wax buu controlaya oo dhowraya ilaalinaya soo maha marka waxaa lagaa rabaa adiga waxaa lagaa rabaa islamic civilization ama ilbaxnimadii islaamka inta tan yani raggii soo maamulay ama islamic civilizationka laga soo bilaabo cumar bin khadaab laga soo bilaabo radiallahu canhu ilaa ilbaxnimadii muslimku ay jilbaha dhigatoo burburtay waxaad sheegtaa rag ama cidku dowladihii maamulayay
planning ya aad wax uga qabtay organizing ya aad wax uga qabtay directing ya aad wax uga qabtay controlling ya aad wax uga qabtay marka waxaan rabaa kulli dawladihii soo maray qaar control kooda fara badnaa qaar wax kala qorsheyntooda badnay qaar organizing kooda badnaa qaar ba waxba badnaa inaha maaragtay marka inaad soo saartid oo tusaalayaal raggii inaha maaragtay inaad tusaalayaal raadsid ayaa laga rabaa inaha maaragtay waayo عشر كمر كل ما we have to make an assessment وين نسمينا class participation لكن assessment كمر وين اللي حريدا محي 10 كعاد مركا دقيس وين اللي حريدا 10 كعاد دقيس وين اللي حريدا مركا class participating خوبي معنا كحال غربا من برا وحال غربا إنه خوبيو أرضو participation كما كغيب هذا شيء 10 ما سمية debate among students ما سمية sharing business news وحي أي سهل الحق ما share قريبا مو ذاكين answering activities, quiz and exam. halkaas waynu joogana insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kala mirtay ee macnaysay markii qarsoon